TikTok waa mid ka mid ah aaladaha loogu isticmaalka badan yahay dunida, halkaasoo ay isticmaalaan dad gaadhaya 7 milyan oo ku kala sugan dhammaan caalamka. Adeegan oo la aasaasay September 2016, halkaasoo ay aasaastay shirkad fadhigeedu yahay dalka Shiina oo lagu magacaabo ByteDance. Adeegan oo dunida aad u gilgilay. Website-ka Wikipedia waxa uu sheegay horaantii 2018 inuu abkani noqday abka ugu isticmaalka badan dhammaan dunida, halkaasoo in ku dhow 104 milyan oo qof ay isticmaaleen sanadka ama soo dejisteen adeegan, kaasoo sidoo kale jabiyay rikoodho ay hore u dhigeen abab laga leeyahay wadanka Mareykanka. Abkan oo gudihiisa laga helayo 40 luqadood oo ka mid ah luqadaha caalamka. Abkani wuxuu kaga duwan yahay ababka kale. Kaliya waxaad duubi karaysaa 3 marin ilaa inta u dhaxaysa 15 daqiiqo. Dhanka kale waxaa dhinac socda abkan oo laga soo sheegayo dhibaato aad u weyn, kaasoo dhalinyarada ka cuna waqti aad u fara badan, ama ay dhalinyarada ku bixiso waqti aad u fara badan. Waxaa jira dowlado badan oo ka soo horjeeda ama dowlado xayiray in abkan ay dadkoodu isticmaalaan, oo ay ka mid yihiin dowladda Hindiya, dowladda Pakistan, kuwaasoo ku eedeeya arrimo siyaasadeed iyo basaasnimo iyo arrimo dhaqanba. Abkan ayaa sidoo kale saameyn ku yeeshay dhalinyarada Soomaaliyeed ee isticmaasha TikTok, kuwaasoo dhawaanaha soo gudbiya muuqaallo anshaxa ka baxsan. Muuqaaladaas oo aan hore lagu aqoon dhalinyarada Soomaalida, kuwaasoo maalinba maalinta kasii dambeeya kasii daraya, una muuqda qaar kasii fogaanaya dhaqankii shaxiisoo banaa ee Muslimka iyo Soomaalida. Muuqaaladan ku muuqda waa qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaalida oo anshax xumo ku dhex sameynaysa meel public ah ama meelaha loo yaqaano communication ee bulshada ka dhexeeya ama ay bulshadu isku aragto, kuwaasoo ku baashaalaya ama si loo hormariyo ugu raaxaysanaya dhaqanka oo u muuqda inuu mustaqbalka dhalinyarada Soomaaliyeed uu gelinayo mugdi kuna ridayo hog dheer, taasoo bulshada ka dhigaysa hubanti la'aan iyo dhaqan burbur. Ayaa waxaa jira dowlado badan oo uga digaya dadkooda inay isticmaalaan abkan, iyo dowlado kale oo xidhay sidii aan soo sheegnay, kuwaasoo gabi ahaanba abkan xayiray. waa anigoo ah Maxamed Siciid. Muuqaalkan intan buu ku egyahay. Aad baan kaaga mahad celinayaa daawashada muuqaalka.